بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaynu mowduucaynu ka bilaabi doonaa waxaa noqonayaa qaab fikirka bini aadamka inagoo hordhac u samayn doonaa mowduuc la yidhaahdo critical thinking oo luqadda carabiga ku noqonaysa atafkiir annaqdi marka waxaad moodaa kelmaddu critical thinking marka la yidhaahdo waa wax dhib qofka ku haya oo ka jawaab bixinayo oo ka fikirayo siduu dhibka uga bixi lahaa laakiin intaynaan intaa gelin waxaa ka horeysa qaab fikirka bini aadamka inaan wax ka tilmaano marka waxaynu ku horeyn doonaa waa maxay fikirku fikirka waxaa la yidhaahdaa waa shaqo ay qabato maskaxda bani aadamku maskaxda bani aadamka waxaa miisaankeeda lagu qiyaasaa 1400 gram kulli anigu intaan arkay qiyaastii waxa keliya oo ka culus beerka oo noqonaya 1500 gram marka maskaxda intaan miisaankeedu yahay shaqooyin kala duwan bay u qabataa qofka bani aadamka ah oo waxa ku jirta qaybta bani aadamka ilaahay uu aad ugu manaystay karaamada bani aadamka ee loo yaqaano maskaxda haddaba maskaxdu waa maxay waxa ay qabataa qabashada marka aan leenahay qaabka ay wax u qabato ayaan bal waxaan ka tilmaamaynaa 4 qodob kow waxa la yidhaahdaa maskaxda waxa soo gaadha fariimo talabaad maskaxdu waxay xallishaa mashaakilaadka nololeed ee ka hor yimaada saddexaad waxaa la yidhaahdaa maskaxdu hawsha ugu weyn ee qabataa waa go'aan qaadasho shanaad waxa ay noqotaa in maskaxdu ay samayso ikhtirac ama fikrado cusub haddaba waxaa intaanay samayn maskaxda waxa isweydiin leh halkee ayay u soo maraan maskaxdu marka ay ama go'aan qaadanayso ama ay dhib xallinayso ama fikrad cusub ay alifayso waxaa la yidhaahdaa maskaxda waxay u soo maraan 5 dareenwood ee bani aadamka 5 bani aadamku wax ku dareemo ilaahay cilmigiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala 4 waxay ku yaalaan madaxa midna madaxa wuxuu la wadaagaa jirka intiisa kale ta koowaad waa dhagaha oo madaxay ku yaalaan dhagu oo fariintu waxay u soo martaa dhegta ta labaad waa indhaha qofku markuu wax arko unbay maskaxdu fikiraysaa oo indhuhuna dee madaxay ku yaalaan ta saddexaad waa urintuna dee waa sankii oo madaxay ku taallaa iyaduna oo haddaad wax xun uriso maskaxda go-aanka ay qaadanayso haddaad wax fiican uriso ta afraad waxay noqotaa dhadhanka isna waa carabka wuxuu ku yaallaa dee madaxa qaybta shanaad oo ah taabashada oo iyaduna dee dhabanka haddaad taabato dareenkii maskaxda u gaadhaya gacanta lugta dareemada kale jirka uu la wadaagaa laakiin 4 baa ku yaalla madaxa haddaba 2 ayaa ugu xoog badan dareennada warkaa soo qaada labadaasi waxaa la yidhaahdaa waa dhagaha iyo indhaha haddaba bal waxaynu eegi doonaa dareennadaasi marka ay soo gaadhaan shaqadan ay maskaxdu qabato shaqada ay maskaxdu qabato waxaa la yidhaahdaa marka ugu horeysa waxaa soo gaadha fariintaasi waxay u soo martaa dareennada indhaha ama dhagaha ama dhadhanka ayay u soo martaa haddaba waxaa la yidhaha fariimaha u imanaya qofka bani aadamka ah dhegtaa ugu hawl badan oo dhegta intay wax maqlayso iyo indhuhu intay wax arkayaan dhegta ayaa waxaa la yidhaha ka waqti badan indhaha oo waxaa la yidhaahdaa dhaguhu inta badan iyagu 24 saacadood bay shaqeeyaan laakiin indhuhu inta hurdo ma shaqeeyaan indhuhu laakiin dhaguhu waxaa la yidhaha 24/7 qofkii hurdo haddii albaabka la garaaco dee qofkuu maqlayaa laakiin dhaguhu labaa kala jirto maqal iyo dhegaysi baa kala jira iminka guuxa baabuurka waa maqlaysaan laakiin dee dareen caynkaasa male sanqadhaha kale oo dhan waad maqlaysaan laakiin dhegaysigu waa waxa qofka dareenkiisa uu siinayo ee maskaxduna ay qabanayso marka carabta waxay tidhaahdaa laa tusaddiq kulla maa tasmac wa tusaddiq nisfa maa taraah de wax kastoo la maqlo
maaha in la dhegaystay lamana rumaysanayo. marka waxaa la yidhahdaa waxa talabaad ee maskaxda shaqadu ay u qabataa waxaa la yidhahdaa waa analysis. waa inay maskaxda wixii taxliiliso kala shaandhayso maxaad qaadataa maxaad tuurtaa. haddaba maxaa ilaahay inoogu sameeyey baa idhaha subxaana wa tacaala maskaxdu inay taxliilkaa samayso. waxaa la yidhaahdaa qofka bini aadamkii wuxuu ilaashadaa 5 shay. 5 shay ee qofku ilaalinaya waxaa la yidhaahdaa marka luqadda ingiriista lagu sheego waa image. waa sumcadda qofku uu bulshada ku leeyahay. sumcadda shayga ugu horeeya qofka ka baabi'iya waa inuu wuxuu maqlay uu sheego baa la yidhaha, ama wuxuu arkay uu ku degdego oo uu sheego. markaa tan taxliilku inta badan dadka waxaa la yidhaahdaa way fudaydsadaan dadku, laakiin waa ta xukunta in qofka bini aadamkaa sumcaddiisu ay wanaagsanaato iyo inay xumaato. ta labaad ee qofka ay u ilaaliso inay maskaxda u xallishaa waxay noqotaa tayada qofku uu bulshada ku dhex leeyahay. haddaan si kale u dhigno magaca qofku bulshada uu ku dhex leeyahay. magaca waxa baabi'iya qofka bini aadamkaa qofkii oo wuxuu maqlayba sheega. xalla wuxuu maqlay yuu sheegayaa. marka waxaas hadduu fidno dhaliyo qofka sumcaddiisa way baaba'aysaa. hadhowtana wuxuu noqdo waxaan run ahayn. waxyaabaha baabi'iya tayada qofka waxyaabaa sumcaddu ka yeelaan tayada qofka. waxyaabaha baabi'iya waxaa ka mid ah in qofkii analysiskii maskaxda isticmaalaya. waxaynu soconaa critical thinking laakiin waa tii ka horreysay ayaynu weli ku jirnaa. ta kale waxaa la yidhaahdaa qofku haddii uu taxliilka maskaxda ay si fiican u shaqayso wuxuu urursadaa inta badan xikmadda. oo qofka bini aadamka hadalkiisu hadduu bilaa xikmad noqdo waxaa la yidhahdaa waa cadweydo oo kale. hadal bilaa xikmadii wuxuu noqonayaa hadal caata ah oo bini aadamka aan soo jiidan karin. marka qofka xikmad la-aan baa ku dhacda haddii aanu wax badan dhegaysan. ha dhegaystay aanu waxa uu dhegaystay maskaxdiisa aanu la kaashan. oo soomaalidu waxay tidhaahdaa waxa laguu sheegay maankaaga la kaasho. ta afraad ee haddii qofku war walba uu sheego dhaawacantaa waxay noqotaa waxaa loo yaqaano statuska qofka. waa kaalinta qofku uu bulshada ku leeyahay. hadduu injineer yahay injineer kaalintiisu muhiim tahay oo wanaagsan buu noqonayaa. magaciisa waa magaca. ta shanaadna waxay noqotaa shakhsiyadda qofka inuu ilaaliyo. markaa taasi waa analysiska. ta saddexaad waxay noqonaysaa marka analysiskaasi dhammaado wixii aad aragtay wixii aad maqashay inay maskaxdu ku samayso kayd. markaa storing baa la yidhaha. maskaxdu way haynaysaa markaa warkaa ilaa iyo marka loo baahdo un ay sheegto. intaa ka horeysa hubsashuu ku jiraa oo wax walba dee hubsashada kama soo hadho. oo soomaalidu fudaydka inta badan qofku hadduu fududaado magaca kuma dhexle bulshada. warkaa marka la kaydiyo markaa sheegistiisii haddana ta afraad waxay u baahan tahay controlling. inuu qofku isxukumo. dadkanaad waxu sheegaysaa waa dad adeeya. hadalkaasi hadal runba ha ahaadee hadduu yahay hadal fidno kicinaya qofkaasi ma sheegayo. mararka qaarkood waxaa la yidhaahdaa wixii aad aragto runa ayaa haddana haddaad sheegto dhib badan keenaya. markaa runtaasi in laga aamuso ayay ku khayr badan tahay. markaa controllinguna waa kaa oo waxa ay noqotaa in qofku caafimaadkiisaba u tudho. waayo waxaa kaga soo noqonaya fidnadaasi mashaakil badan. ta shanaad waxay noqotaa markuu hadalka gudbinayo laftigeeda hadalka qaabka uu sheegayo wixii uu hayay waa inuu inta badan waxaa la yidhaha censorship geliyo oo uu baadho oo uu shaandheeyo oo hadal macno leh oo nuxur leh uu hadalkii ka dhigo. markaa taasina waxay keentaa baa la yidhaahdaa in magaciisu uu kor u kaco. haddaba bal waxaynu eegaynaa dadka had iyo goor la yidhaahdo way maskax fiican yihiin. dadkeennu waxay u qaataan dadka aqoonta leh ama dadka waxbarashada ku wanaagsan ayay u haystaan inay had iyo goor ku fiican yihiin fikirka. taasina sidaa inta badan uma dhacdaa la yidhaah. qofku hadduu ku fiican yahay waxbarashada oo uu fikirkiisu aada u fiican yahay baa la yidhaahdaa inta badan waxyaabo badan oo dhowraa ku dhaca. kow waxaa la yidhahdaa waxaa ku dhaca qofka deganaanta ka lunta.
deganaansho la'aanta ka lunta qofku hadduu waxbarashada ku fiicnaado tusaale ahaan oo arday yahay deganaanshaha ka luma oo fahamkiisa uu ilaahay ugu deeqay faham wanaagsan deganaanta ka lunta taasina waxay keentaa in dhallinyarada wax la dhiganaysaa ay colaad u qaadaan dabeetana qofkaasi uu noqdo qof fudud oo had iyo goor aan wax hubsanin oo fikirkiisu noqdo fikir inta badan ummadda uu naqdiyaya talabaad qofka ku soo korodho qofka aqoonta ku fiican waxay noqotaa wuxuu noqdaa qof qallafsan waayo dadka uu wax la dhiganayo ayaa bani aadamku inta badan tartankii xaasidnimo yar galayo waxaa laga yaabaa in qofka waxbarashada ku fiican ardayda kale ay xooga ay yar xasdaan dabeetana isna marka dambe qallaf baa ka soo baxa qallafkaana wuu la weynaadaa baa la yidhaahdaa marka aqoontiisii waxaa nabar ku noqonaysa qallafnimadaa uu la weynaaday haddaba waxaa la yidhaahdaa marka fikirka la isku soo wada ururiyo waa laba qaybood oo waaweyn fikirka la sheegaya mid waxaa la yidhahaa positive thinking waa fikirka dhinaca wanaagsan loo fikiro midna waxaa la yidhaahdaa negative thinking haddaba psychology-ga baa la yidhaahdaa maskaxdeenna saddex qaybood unbaa inta badan psychology-gu ka hadlaa maskaxda bani aadamka lixda qaybood ee maskaxda bani aadamka saddex buu aada uga hadlaa qaybtan la yidhaahdo frontal lobe-ka ee maskaxdee hore qaybta dhexe oo la yidhaahdo limbic iyo qaybta dhinaca ku jirta oo la yidhahdo parietal haddaba waxaa la yidhaahdaa maskaxda sidaa u qaabilsan ama waxay noqon kartaa positive ama waxay noqon kartaa negative marka qaybta humanity-ga positive-ka xaggan hore ku jirtaa ilaahay cilmigiisa marka la weysaysanayo baa la yidhaha qaybtaasi haddii ay dhibaata la soo diriso weysada qaboojisa marka qaybta dhexe ee shayaadiinta ku jirto ee xumaanta leh oo kacda marka qofku cadhoodo ta cadhada keenta weeye hadduu qofku wax dilaya ta dilka keenta weeye marka ta dhexda ku jirta ee limbiga la yidhaha way ka xoog badataa tan kale laakiin tan waxaa ku samaysaa la yidhaha firfircoonida weysada uu qofku weysaysanayo oo waata qofku markuu cadhoodo dadkan aan muslimkaanba waxay yidhaahdaan meesha iskaga kaco soo yar maydho haddaba positive-ka iyo negative-ka balaad aynu wax yar haddaynu yar iftiimino waxaa lagu tilmaamaa koob biyo ku jiraan koobku markay biyaha ku jiraan haddii ay biyuhu dhiman yihiin baa la yidhaahdaa indhaha bani aadamku waxay arkayaan dadka qaar waxay arkaan inta dhiman qaarna waxay arkayaan inta buuxda dadka inta dhiman arkaa waxaa la yidhaahdaa rajo la-aan bay inta badan muujiyaan waa qaybta fikirka ee xun ee la yidhaahdo negative thinking loo bixiyey dadka qaarna waxay arkaan koobka inta buuxda oo waxay idhahdaa inta kalena way kusoo darsamaysaa marka waxaa la yidhahdaa waa qaybta rajada waana ta inta aynu dad badan dee ku aragno oo qofkii haddii ilaahay subxaana watacaala uu wax yar siiyo markuu guri dhisto kii labaad buu raadinaya yani intii bandheedunbaa u muuqata hadduu dabaq dhiso dabaqii labaad hadduu branch furo branchkii labaad branchkii saddexaad branchkii afraad markaasaa nin caafimaadka wadnaha aada uga shaqeeyo maraykana ayaa wuxuu yidhi bani aadamku inta badan caafimaadkooda waxay ku bixiyaan siday lacag u heli lahaayeen waxaa loo yaqaano weel daligeynka mar alla markay lacagtii helaanna caafimaadka baa meesha ka baxa buuri wixii uu lacag helay oo dhammina caafimaadkii uma soo celin karayaan buuri marka qofku waxaa wanaagsan inuu ka fikiro adduunyadanu daba ordayo inta badan in qanaacaddu ay fiican tahay oo uu dhinaca wanaagsan wax ka arka baa la yidhaahdaa haddii qofku markaa inta badan dadkuna wuxuu u badan yahay qaybtaa dhexaa xoog badan ee loo yaqaano negative-ka waa qaybta marka analysiska maskaxdu ay samaynayso hadal kasta u turjunta dhinaca qaldan ee marka hore keenta cayda marka dambe aflagaadada marka dambena gacanka hadalka isku rogta marka dambena in la istilo marka qaybtaas sida lagaga hortegi karaa waxay noqotaa in kow qofka bani aadamkiihi marka uu cadhoodo uu meesha ka kaco laba inuu weysaysto weysadu waxay soo kicisaayee activation ku samaysaa qaybta positive-ka ee wejiga hore maskaxda ee frontal part-ka qaybtaasoo waxaa yidhaha breeg u ah ama xakamo u ah qaybta xun marka marmar baa waxay sidaa malaha shaydaankan la sheegayaba qaybta uu ku jiraa waa qaybtaa dhexe marka maanta waxaynu kusoo yar koobaynaa haddii alla idmo inaynu ka fikiro
inaynu hadalka aynu leenahay aynu u fiirsano oo aynaan ku degdegin wax walba. Waxaa maanta la isku wada diraya maxkamadaha haddaad tagto, waxa la isku haystaa waa hebel baa saa yidhi iyo heblaaya saa tiri. marka in hadalka la hubsado ayaynu kusoo gabagabaynaynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.